عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرم فاتوش channel soo dhawaada walaashin faatuush maanta waxaan rabaa inaan la wadaago because markasta arka wax qeyr ah waxaan jeclahay inaan la wadaago si ajirkiisa u heshiin idinkana waxa jirta dugsi ilmo yar yar ay dhigtaan oo dhismo inta lagu bilaabay dhismihii caawin laga rabo qaybta laga rabo caawintana waxa way dhagax shub iyo gogoshi la dhigi lahaa waa shamiintadii iyo roogi loo dhigi lahaa lagu dhigi lahaa dugsiga si ilmaha ay ugu fariistaan marka macallimiinta ayaa inoo sheegi doona dugsiga taariikhdiisa in la sheeri doona laakiin inta waxa in kugu soo qorayaa telefoon numberkiisa iyo meesha lacagta ku diraysiin ma qof aan aqaano waay ma ahan dadaan aqoonin iskama kiisoo sheer gareynayo waa dada aqaano in ka hubo meesha ay lacagtaas u socoto dugsigeena u socoto inay tahay ajir ku soconaya hadaa ka qayb qaadato ilmahaas yararka meesha quraanka ku dhiganaya hadaa wax ka dayactirtid in quraankaas ay aqriyaan ay barstaan adigana ajir ah ka leedahay lacagta telefonkiisa waad ku diri kartaa aniga faatuush waa ii dhiibi kartaa oo waa u diri karaa siyaabo badan baa u bixi kartaa telefoon numberka magac ayaan ku soo qoraya hadii aadan awoodin xawaalad ina aadid aniga ayaa ila soo xiriiraysaa dhaysa faatuushay intaan baan ku soo diraya ama intaan baan u haya macalinka u dir sidoo noo sheegay waa dhagax shubka iyo dhulka shamiintadii iyo roogi la saar lahaa si ilmaha ay u fariistaan marka ka qayb qaata ismuujiye faatuush family iyo faatuush channel ba insha Allah gabdhahayga qaarka jecel wixii awoodid 10 kama dareysa 20 kama dareysa inteena soo 20 iyo 10 iyo 50 isku darnay inta awoodna 100 waxay noqonaysaa wax weyn waxa laga yaabaa ilmaha soo meel qurux badan fadhiya in la soo duubo insha Allah catirada dhameystirta waa kana macallinkii oo hadlaya insha Allah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان مسلمين انت نداود دونتا iyo intana maqli doonta galabta oo taariikhdu tahay hijriga 19 bishii Rabiul Thani 1444 taariikhda milaadiguna ay tahay 14 November 2022 waxaan joognaa madrasatu Nuurayn tacliim al-Qur'aan al-Kariim madrasadan oo in muddo soo shaqeynaysay ilaa muddo dhowr iyo 10 sano ah dhismaheedana dib loo dhisay oo loo hawlgeliyay kadib markii dhismihii uu gaabtay oo dhibaato badan arday ay la kala kulantay kuleylka iyo guriyihii oo kor loo qaaday agagaarkoodii ah ilaahay mahadiis subhanahu wa ta'ala madrasadii dhismaheedii waa noo taam noqday galabta waxaan walaalaha muslimiinta in la wadaagna arabna waa madrasada tatimadeeda dhameystirkeedii madrasada waxay u baahan tahay hadda markaan xaaliyan gogol ay u baahan tahay ardadii ciid markii lagu soo shubay meeshii la soo buuxiyay shamiitadii cagdhigi iyo goglihii roog lagu gadi lahaa waxay kale u baahan tahay biyo degeen meeshii noqotay in carakaabo lagu shubo oo in kor loo soo qaado baahida noocaas ayaa jirta sheekhuna waa naga hadli doona insha Allah ta'ala marka baahidaas qofkii muumina oo ka qayb qaadan kara inuu ka qayb qaato waxa lagu la baxo waxa u khayr badan oo diinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala marka waxaan ku boorinayaa walaalaha muslimiinta ah inay naftoodana wax hormarsadaan ardadana ay ku anfacaan insha Allah ta'ala aad iyo aad baa u mahadsantiin assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh bismillah alhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ahbabi fillah awalan ilahi wa mahad iskale وثانيا waxaan u mahad celinaynaa macallimka meeshan quraanka ka dhiga mudarriska ka kitaabaha ka daraaseeya maamulaha kaga horeeyay oo hawshan soo asaasay nidaamka sharafta leh ay soo wadeen meeshan anigu waxa igu horeysay iyadoo geed qurac ku yaala meeshaas ardada dhexdeeda ku aadan geedkaas qurac ah baa shaqadu ku bilaabatay galabtana waxaan dhex taaganahay dhismo aad iyo aad u qurux badan qabiya baa ku jirto geesaha dhismayaal kala oo si yaalo ardada maarta qaab kala u sii shaqeeya masjid farac ka ah oo meesha ku yaala oo ardadii meeshan quraanka ka dhameysay ay ku bartaan diinka islaamka ay ku bartaan macnihiisa iyo quraankii kariimka ahaa inay hore u sii bartaan marka waa shaqo aad iyo aad looga soo shaqeeyay baa la oran karaa waa shaqo mira dhashay waa shaqo ku haboon wax darsi ku fiican qofku meeshii shaqada uu ka bilaabay haduu iska taagan yahay runtii waxa la oran karaa
waa iska danayse waxba ma uusan kordhin laakiin qofkii inta geed quraca ku bilaabay galabta intaasoo dhismoo kala jeeda ay meesha ku taalo masjidkii uu ku yaala salaada lagu tukanayay madrasadii ardada quraanka dhamaysay fasirkiisa lagu barahayay midaana u kala xiran gabdhihii iyo wiilashii way dadaaleen maamulka iyo macalinka khayr Allah siiyo wanaag Allah ku amaal mariyo sida macalinka uu sheegay dadka muxsiniinta waxaan ku boorinaynaa waxa hadda ka dhiman qabyadu wayba iska yartahay waa dambeeya ma gaaro waa meel uu kala hormarayo waa meel qofkii wax ku darsadana ilaahay uu ihsaan uga helayo ilaahay waxa weeye uu macigiisa noqonayo bil awn wa nasr wa inna allaha la ma'al muhsiniin ilaahay dadka muhsiniinta oo ihsaanka sameeyo macigoodu yahay wali micnimadaasna waxa looga jeedaa bil awn wa nasr kaalmo iyo gargaar ilaahay u gargaarayo tawfiiqda ayagu u waafajinayo ilmahooda ahludiin uu ka dhigayo ilaahay wax badan buu ugu kaalmaynayo ugu gargaarayo dadka muhsiniinta oo ihsaanka sameeyo qofku wixii uu la baxo oo diinta ilaahay daraadiis uu la baxana hadda in ilaahay uu badal siinayo adduun iyo aakhiraba waa laga wada dhagsan yahay cilmigeeda dadku uu wada qabaa oo wax badan baa dadku ihsaanka ay ka soo shaqeeyeen ama diinta ilaahay ay soo akhristeen tanaysa waxa weeye meesha diinta ilaahay lagu baranayaa way u sii qaalisan tahay meelaha khayrka lagula baxayo way u qaalinimo badan tahay waa meel nafci badan weey wixii hadana la hormariyo qofku intuu nool yahay uu hormarsado iyo markii uu dhinta waxa laga daba bixiyo waxa aad iyo aad u sii khayr badan oo nafci badan waxa ka horeeya sadaqa adoo nool alla baxday waa toos hortaada ka daaran وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا بإلهي ورنهيا وروحي آد هرمرستان وأدو تشوغا الله بحديد ووح آد ياد خير بدن وانا هليسان وانا آد ياد شغا أجر كيدا صدق أجر كيدا إيو أما المركض أوغن يساس إلى كتل ما هرمرك هو عجيب dadku inta badan waxa suurtooda inay fakarayaan markaan inta waxa sal ii sadaqeey hadeer adoo nool hadeer naftaada u quuri weyday marka dhimatidna ilmuhu u kuma quuran ayaga dhaxlanaya ayaga kala goosanaya aad iyo aad waxa cajiib ah qisa uu noo soo gudbiyay Sheekh Abu Xasan Maalin Ilaahay khayr maadan ha ku amaal mariyo dhaqan ahaana looba wada og yahay cid waliba soo gudbisay inay jirto nin dhintay oo awlaadiisii maalkiisa ay dhaxlanayaan xoolo tiro badan laga dhaxlay markii ninkaas ilmihii dhaxalkii la iskugu yimid la qiimeeyay xoolihii wax 100 kun ka badan in uu u bandhigay aabe maxaa daynaho lagu leeyahay xajmi la yimid xajkii lama imaan xoolahan hadda waxaa la rabaa in laga xajiyo maalka haddii dayn lagu leeyahay waxa ugu horeeya intaan la dhaxlin markii qofka dhintay oo maalkan iska lahaa laga duugo oo laga tajhiisiyo maqaasiirtii aaskiisa iyo karfantiisa waxaas laga dhamxeeyo in daynta laga gudo uma tuqdaa duyuuna wey daynta aan la gudin xoolaha in la dhaxlada ma banaana daynta ugu horeysa xajkuna waa dayn lagu leeyahay maal buu lahaa laga xajiyo markaasuu caruurtii waxay weydiiyeen intee la ag tahay maalka xajkaas ku baxaya uu yaraan waa $4,000 wuxuu yiri mid ka mid ah yiri wiilashii xaj hadduu u baahan yahay asagoo nool buu ka xajin lahaa asagoo nool xaj u nacno hadda ka xajin mayne noo qayb xoolaha wadaadu marka ilmaha la isku hadlaynayo ama maalka la dib dhigan la dardaarmay qof walba uu leeyahay markaan dhinta saah la igu sabafalo waxaa imaan doona qofkii adigu wixii naftaada u aamini weyday ka baqiishay qayrkaana waa kaasi baqiilsan yahay ilmaha hadda xoolaha laga horeynayaa waxayba jecelin waalidku intuu dhintay in ayagu khamro iyo jaad kala baxaan ilaahay naga badbaadiyo waxa ka khayr badan adoo nool wixii aad la baxdid waxaan isku boorinaynaa in diinka ilaahay wax lagu la baxo in diinta loo kaalmeeyo aduguna u kaalmaysatid gooshu waa cajiib qofkii gogol la baxaa al jazaa min jinsil amal weeye waa amaal mar qofka wixii uu la baxay jinsigiisa lagu amaal mariyaa ilaahay inuu xariir jannada gogol uga dhigo bay qofkaas amaal markiis u noqonayo qofkii ardada iyo quraanka kariimka akhrinaya ciida ka qaado gogol fiican u dhiga roog u dhiga gogol qurxoon u dhiga jamita u mariya meesha boorka ka waxayay waxaa imaan doona insha Allah taala amaal markiis ilaahay inuu xariir ka dhigo xariir jannada lagu gogol inuu ka dhigo shamitada iyo gogoshu waa isla mid waa gogol wixii looga xisaabtamo qabyada kale oo meesha inta taala wadankii biyo deg buu noqday biyihii qolaba qolay ku rogto ku xirtay haddii dacda laga reebo oo dugsiga dacda laga xiro oo inta ciid lagu rogo dhowr ciidaasi ay u keento meesha quraanka lagu dhiganayo inaan qurun uu ka soo ururo inta dac fariisid ay noqoto ogow ayadana maxay munaasabadeedu noqon doontaa jannada meesha dabaq ugu sareeyo ilaahay inuu ku geeyo sida dugsiga ciid uga qaaday oo dacdaas uga kor yeeshay qof kasto marka waxaan ku boorinaynaa dadka muxsiniinta ah nafteena aan ka bilaabaynaa qayrkeena aan u sheegaynaa dugsiga oo dacda laga kor yeelo ardadoo gobol loo dhigo qabyadoo la dhamaystiran waa khayrul acmaal khawaatimaha dugsiga inta soo shaqeynayay inta la soo dhisay
وحير أو كلمة أنا قفكي كدر صدا وخير الأعمال خواتنا سيدنا أبو شيخ عمل واحد خير بدل متختن كوا كوش اللي يهدش متدنا وحريرتي بدل كان غضنا هدي على قدره عيد دقي سهل اللي أنا ضبط شنو يسوون ونقضون تا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.